عشية كوادن قدومية حسبك كلمية وحاو عاقلكو شيغي إناني جرين عد كاغا هابون قدومية حسبك كلمية سياسي محمود حاشي عبدي عاقلكو هذا الكيس سي وطا وحاو سيدو كلي كجوابي هادلو كسو يري قدومية هايدا قحونتيغا يبركعياشا قرنكا عبدي كرين حنيف iyo wasiir dawlihii hore wasaaradii duulistii hawada xukuumadii madaxweyne Silaanyo Axmed Nuur Faahiye horta Maxamuud 18 jir buu sanam ku galay cid u digdigleyn karto oo oran karta sanam baan ahaa kanaan ahaa shaal libax baan soo gashaday horta ma jirto cid u sheegan karta qarankan baan u soo shaqeeyay uga shaqo badan oo uga furfurcoonayna ma ay jirin Maxamuud laba hogaamiye dhexdood ayuu arintiisan ka xaqiijiyay hogaamiyihii markaa xilka ka degayay oo uu sharaf iyo maamuus dhexda ugu xidhay inuu kaga dego oo dalka oo midaysan oo gacmaha aysta oo halkii uu marayay aynu garanayno oo aan maanta cid Soomaaliland oo ka maqnayd aanay jirin ayuu qalinka sidoo ula barbar taagnaa oo dhinaca ula hayay oo u kaalinayay buu madaxweynuhu sharaf kaga degay ku wareejiyay kamaanta joogana kaameenkii ugu adkaa iyo doorkii ugu adkaa inuu muuse halkaa fuulo ayuu ahaa ninkii qaatay naguna baalashii uu ku duulayay markaaba baalal kamida baan hayno oo la xaqiijinay madaxweynaha maanta jooga oo aan nagu dooranay xagan mayno xaasha intuu xilka joogana waa la shaqeynayna si mugiyo miisaan laan wada shaqeynayna madaxweynahana waxaan leenahay waxad martaa wadadii wanaagsaneed ee uu sumeeyay Axmed Maxamuud Silaanyo labada kursi waa inaad labada wadada qaadaayo aad wanaag ku wareejisaa labada nin ee ilmaadeerka ana waa la yaqaan halka lagu kala saarayo iyagana arintoodu dib ma leh dadkay ka yooyootanaya arintaas ee waxa weeyaan naamlayaasha ka noqdayna waxaan leeyahay arinta faraha kala baxa ka waantooba xisbiga ayaa u naafoobaya ee loo ururi maayo Maxamuud Xaashi haddii la kala socdo wuxuu yiri ninuu ku yaryahay buu ku yareeyay Maxamuud loo ururi maaye xisbiga loo ururiyay xisbiga ayaan lagu ciyaari madaxweynaha maanta jooga Muuse Biix Cabdi dabadii cid kaga habooni runtii hadda saaxadda siyaasadda ka muuqato damaca Maxamuud Xaashina noqon maayo miday habar jeclo ku kala tagto de sidii raggii hore damaca yeelan jiray habar jeclo waxa weey arintooda loo qaadan jiray baa loo qaadanaya waxaan in yar oranaya inamo indhaweyd ayaamahan ka hadlayay waxa weeyaan miidiyahayaasho damaca Maxamuud ka soo horjeedayo dhabarka la soo taabtayo iyagu aan lahayn annaga wax doonayna Maxamuud wax doonistiisa ayaanu diidanahayo hebel kala wax doonaya horta taasi nusqaan bay ku tahay ninka loo hadlayo leeyahay hebel baa wax doonayo maanta meesha ku haboon nusqaan bay ku tahay ninka hadlaya waxa weey arinta ku hadlayana nusqaan bay ku tahay inankan la yiraahdo xinif ee gudoomiyaha barakacayaasha oo caadeystay inuu cidii beeshan ka tirsan ee hadasha haday boqortay haday wasiirtiyad uu la hadlo oo loo soo isticmaalo isaga la yaabi maayo inuu marxaati beenaalo furo waa laga sugay waa ku sifoobayo wixii ugu sharafta badnaa ee qofka bini'aadanka ahay uu sharaf iyo qiimo ka day jiray ayuu qawdi oo quraanka iyo sunnada ah waxana aad la yaab goorta uu Axmed Nuur Faahiye oo runtii aanu haweenayna islaam waa siyaasiyiinta saaxadda ku soo jira goortu isna gubada ku biiray oo la isticmaalay gubada ku biiray Axmed Faahiye waa ka tacsideynay arinta inuu maanta Maxamuud Xaashi soo yooyootanaya u soo fariisto wuxuu wadaadkii quraanka ku baray qiyaalaha u furinay waa ninkii hadaladiisii gabigeedaba waxaan ka fahmay mar baan annagu wasiiraha marka uu wasiirka horta waa ninkii ka dhigay marka laga qaaday calada yar ka hayse uu ka cadhaysan yahayna markan uu leeyahay wax doonayay ila xasan gaafadha wax doonayna ma aha waa markii isaga wasiiru dawlaha loogu bedelay